halkani waa Afgoye Media Show. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kusoo dhawaada Afgoye Media Show. Maanta muuqaal cusub iyo stuudiyaha Afgoye Media Show. Maanta waxa waaye muuqaaladii hore aan soo gudbi jirnay muuqaaladan way ka duwan yihiin. Ma sha Allah waxa martiin noo ah oo stuudiyaha nagu soo booqday Maxamed Ali Sheekh oo ku magac dheer Maado Ali oo مسؤولين الدقمة أفجوي جارهان قيبت كورنتدا دنب إلكتري السجوا مركا فرحتنا لقاعدنا إن شاء الله دو إلى كرال النقطة برنامج كان وحولي قيمين قصوي جاره داودياش كهر أفجوي ميدي شو حدين ليه مركا لكسر دوادا مقال عصب أنت المقال كأسي جود جالين فضلا هدي عاد مقال عصب تسبيس جراب لايك شير كومنتي إنه ده قناة كا أنت هرنا سيسن عادي وجماعة سيهين فيديوان هدي aad ka heshid fadlan like-ta inoo saar adigoo mahadsan maanta waxaan kaga hadli doonaa ama markaas aan ku soo dhaweynaynaa stuudiyaha Maado Ali oo sida hore ugu sheegay martino isaga marka wuxuu macnaha stuudiyaha Afgoye Media Show bulshada uu qabtay iyo wuxuu ka dhigi karo aan ka wareysan doonaa insha Allah ku soo dhawo Maado bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ku dhawahay gudoomiyaha Afgoye Media Show إبراهيم عمر عثمان إبراهيم دوندونس iyo ku-xigeenadiisa sida Abees Maxamed Sheekh Aamana oo heer Afgoye dal iyo dibad ay aad u kasayaan waan dhawahay waxa kale oo aad u salaama shaqaalaha Afgoye Media Show ayagana waxaan leeyahay waa salaamantihiin stuudiyaha waan ku dhawahay waan ku dhawaan doonaa markii ugu horeysan ma noqon doonto markii ugu dambeeysan ma noqon doonto insha Allah haddii Ilaahay ka raali noqdo stuudiyahan Afgoye Media Show markaa fiirisid maanta uu degmada ku soo biiray ilaa ay hadda waxa dareemay inuu wax badan qabtay oo dal iyo dibadba leh asi ahaan Afgoye uu ka shaqeeyaa laakiin wax qabadkiisa ilaa dibadda uu jiraa waxa dareemay inuu wax badan qabtay bulshada dadka xanuunsan dadka danta yar waxyaabo badan oo lagu farxo qabtaa oo markii loo fiiriyo aan dadka caadiga qabo karin anagoo kale markuu qof xanuunsado وأصوب وقنا قرآن وصوص صارنا وخير بدن واي لكن أفجوي مودي أشوف مركي تكتو وحبدنا وخوف كاس وهم ويالنا وحبدنا ولوقبنا وحبدنا والدريمة معناها الدون قد على ذي سكان بدن وهلا عافمات كيس الله تعالى شخب بدن أي قبنا يان وحن كبرار الجنا تيم كأفجوي مودي شو إن شقدوا السي وتان وهري قدوميها تيم كإبراهيم عمر عثمان إبراهيم دوندونس وشق أذك gacanta ku hay shaqada waqti adag na soo bilaabay xilli ay xaaladda adag tahay oo wadankan iska adag yahay hadana wuxuu go'aan qaatay inuu dadkiisa u shaqeeyo qaasatan heer Afgoye oo aad iyo aad ula shaqeeyo baahi walba ay qabaan ama ay tabanayaan guri walba ama meel walba ay joogaan inuu ugu tago Ibraahim waxaan leeyahay hor u soco garabkaaga Ilaah gal anaga ducanku uu ka weyn hada dhaqaalamku uu ka karnaa waa mudneed in dhaqaal lagu kabo dal iyo dibad laga taageero hadda anaga awooddeena ma dhamalaak wixii ducay oo kugu kabeena garabkaada waa taaganahay hor u soco shaqadaada hor u wad aan ku dhihilahayn Ibraahim aada ugu maadsantahay Maado reality-ga ka hadashay horta studio ambalkii Afgoye Media Show waxa loo sameeyay bulshada oo kiimid bulshaduna u shaqeeya bulshaduna oo wax u qabtaa ma sha Allah iyadoo taajirto waxa jirta caqabado badan oo marka barnaamij caqabatid hadduu barnaamijku xun yahay anti helaysa hadduu barnaamijku fiican yahay anti helaysa mar walba waxa waaye mu'aarad sidiisaba lama waayo alxamdulillah laakiin annaga muhiimadeena waxay tahay oo aan waqtiga u luminaa ama markaas kharash aan u gelinaa in badan dadka waxay u maleeyaan muuqaal markaan soo tabino ama muuqaal aan soo gelino in markaas ujeedadayna ay tahay inaan view ku raadinayno ama markaas dhaqaale aan ku raadinayno reality-ga markii laga hadlo horta YouTube waxa waaye laba jid oo leeyahay jid waa magac inaad magac ku heshid jidna waa in dhaqaale ku heshid dhaqaale markii lagu helayo waa la yaqaanaa YouTube lay ama dadka muuqaalada fiirsado muuqaalka hadii uu ka hadlaayo waxyaabo dhaleeceen ama fadeexo ama markaas wax fool xumo ah bini aadamka inta badan wuxuu jecel yahay waxyaabaha fool xumada ah inuu buubuniyo marka khayr ka hadlaysidna waxa laga yaabaa khayrka inaan lagu la raacin anaga ujeedkeen wuxuu yahay horta channel-kan boqolkiiba 50 bulshadan siinay inaan ugu adeegno boqolkiiba 50 inaan anaga markaas aan wixii ahwaashayna ku soo gudbino iyadoo taajirto video la duubo equality qarasha galo
qalabaa galo maskax juhdi waqti intaba macnaha aniga iga soo baxdaa aniga ku saacido iyadoo taajirto dada ka dhaadhacsan YouTube-ka channel-ka Afgoye Media Show ama YouTube oo dhan markii video la soo geliyo in dhaqaale uu korsaaran yahay oo lacag lagu helo lacag lagu helo YouTube ninkii ogeyn ha ogaado ninkii ogne waaba og yahay channel-kan muddo wuxuu dhisan yahay 12 bil ama 10 bilood markaan dhisayay waxay ahayd Agoosto 2019 bishii sanadkii la soo dhaafay equality inta uu shaqeynayo aniga inaan lacag geliyo mooyee lacag kama soo saarin laakiin waxaan faa'iido ku qabaa oo 90% faa'iido iga soo gashay ma sha Allah in aan dadka masaakiinta ah ugu faa'iideeyo muuqayga ama maqalkayga ama codkayga inta uu gaaro faa'iido taas ka weyn ma jirto adigoo nin maskiin ah ama nin dhibaataysan u adeego ajir aan la soo koobi karno Ilaahay ka siinaya waxa laga yaabaa kumanaan bilimaad boqolaal xanuunsan oo daawo la'aan sariir la saaran haddii la fiiriyana xaafadaas haddii loo dhadhax galo la daawey karo waxa laga yaabaa daawo la'aantaas aawadeed inuu qofkii u dhinto Soomaalina waxay hore ugu maamaaday isma daaweysay waa isduugtaa aniga marka waxaan ugu talagalay bulshadayga inaan markaas wixii karaankeyga ama wixii markaas hadafkeyga ama wixii aan markaas ka qaban karo qofkii dhibaataysan oo la soo sheegay in aan gaarsiiyo heerkii ugu wanaagsanaa oo bulshada u dhaxgalo oo codkeyga aan u sifuro waxa jirta iyadoo taa anaga aan codkeena aan baahinayno aqbada badan la kulanaa dadku Ilaahay faraha ma jimeenin shantan far Ilaahay ma jimeenin mida gaaban mida dheer mida dhaxdhaxaad mida yar dadka bili aadamkana saas oo kala waay dad waxa arkaysa ma sha Allah oo barnaamijkii aad keentid garabka siinaayo kugu dhiirigelinayo ka caawinayo in aad markaas ku guuleysatid dadna waxay jecel yihiin in barnaamijkii aad keentid markaas ay aqabad ku noqdaan ama dacaayad ka fidiyaan ama xumaan ay ka tabiyaan qaasatan wax badan oo hore aan u soo aragnay ma sii sheegi karno mana dhahayno macnaha hebel asaas dhaay ama hebel asaas yiri waa markii labaad aan barnaamijkaas ujeedkayga aan markaa kaga dhiidhinayo muuqaalka annaga waxaan u sameynay channel-kan inaan bulshada ugu adeegno maadaama uu soo ahayn channel shakhsi ah uu yahay channel degmada magaceeda ximbaarsan inaan tigrifal ku sameynin inaan bulshadii degmada ku dhalatay ama xaq u lahayd aan ugu adeegno sidii markaas iyaga jeceliin aan ugu sameyno waa sameey karnaa channel-ka hadda nabadu u taagan yahay wuxuu u taagan yahay wanaag wuxuu u taagan yahay samaan waa la gidi karaa haddii la rabo caatin iyo aflagaadi iyo waxyaabo akhlaaq dare waa la soo geli karaa laakiin taas sharaf uma aha degmada taas sharaf uma aha degmada annaga waxaan u sameynay Afgoye Media Show ma aha shakhsi waa degmo dhan magaceeda mana lagu tigrafali karo mana lagu xadgudbi karo haddaan rabno kanaal kale oo magac shakhsi inaan abuurno waxa waaye waa waxaan rabno waa farfardhi karnaa laakiin taas waa diidnay waxaan u diidnay in baahida taagan bulshadayna oo dhibaataysan ee baahida ugu baxdo Afgoye Media Show anigana waqti walbo ama saacad walbo waxaan u taaganahay waqti shaqooyin lagu yaqaan jiri oo aan caan ku ahaa waa burburi waxaan u burburi inaan bulshadayga u adeego waxaan bulshadayga u adeego ugu burburi waxay tahay baahida taagan markaas inaan soo tabiyo markaas oo aan macluumaadka caalamka si gaarsiiyo channel-kana taas uu sameeysan yahay aadan ugu maasan tahay maado waxaan raacsiisanaa horta gadoomiye adiga hor shaqo adaga haysaa صح shaqo walban markaa qabanaysid صح waxay leedahay mucaarad iyo muxaafad صح waaba hore u sheegay waa waxyaabaha oo shaqada ku socota waa صح shaqadaada maanta day mucaarad lahayn meel ma gaarayso صح oo nin walba beelaa tahay ku dhaho beelaa tahay haduu ku dhaho ma kala dareemaysid wixii ka xun xitaa ma dareemi kartid ma dareemi kartid qaladka ku dhex jirtid ma fahmi kartid صح waay marka horta inaa mucaarad yeelatid waa muhiim shaqadaada ku saxmayso صح shaqada aad haysid waxay ku toosaysaa marka mucaarad leedahay صح laakiin hadaada mucaarad leen shaqadaada ma toosayso صح horta inaa mucaarad lahayd wax wanaagsan waay laakiin mucaaradka waxa loo baahan yahay inay noqdo mucaarad wax saxayo صح mucaarad macnaha shaqada dhan joojinayo ma la rabo صح مثلا qof u tagtay oo xanuunsan
waxaa ku talagash qofkaas haddaadan adiga wax u qaban karin in muuqaalkiisa adduunka gaarsiiso oo khayr doon oo qofkaas wax u qaban kara si loo helo oo markaas bulshada qofkaas wax loogu qabto adiga kaalinta ugu weyn aad qaadatay wixii dadka dhan gaarsiisay ninka haddii qolkiisku ekaan lahaa cid ma gaari lahayn shaqadaas oo kale markii qabatid dadka oo mucaaradka ayaga markaas waxaa la rabaa markaas ayaga inay ku garab taagnaadaan shaqada kula qabtaan oo ay sii gaarsiiyaan waxaa laga yaabaa qofka wax baxsanayo kale qof mucaaradkaaga inay qaraabo yihiin war anay TV-gaasaan waxaan ka arkay barnaamijkaasaan ka arkay war ninkaas nin lagu kalsoonaan kara ma yahay ninkaas nin ciddii loo xiriirin karo wax lagu dhiibi karo ma yahay oo kale waxaas haddii dadka soo gaaro markaas waxaa la rabaa inay mucaaradnimo meel dhigaan oo yiraahdaan wanaaga dhinacooda ay ka qaataan sadaqada ayagana markaas codkooda ku baxsadeen ayagana codkooda haday ku dhiiro war ninkaas nin fiican waay shaqadaas uu qabtaa dad badan oo u qabtay oo soo diri kartaa cidii waa la xiriir teeda kale hadda adduunka horumar la gaaray wixii qof soo dhiibto qofka kale soo arkaya la siinaabo mubaasharo loogu dhiibay social media ayaalo wixii soo arkaya la siinaabo la bixina hadii culeysarka imaadan social media qofku lagu fadeexaysan karaa ama commentiga lagu soo qori karaa ninkaas waxa la diidaa qofkiyo wixii soo gaarin in caqabad lagu noqdo la ninkaas nin wax lagu dhiibi karo ninkaas nin saanyole in la dhaho qofkii wax loo qabo lahayna meesha uu ku burburo ninka wanaaga wadiyo meesha ajar karaasa usna ajarkiisa meesha uu ku hakado kii kale wax soo dhiibi lahaa asna kiisa meesha uu ku baaqdo horta taas mucaaradku uu diigi lahaa ama laak haday wax saxayaan aday dan kugu jirtaa wixii qalad in laga saxo ku maslaxa waaye adduuni aakhirabo in qaladkaaga adduunku lagu saxo aakhira adoo nadiif tagay laakiin hadii adduunku lagu deeyo qalad dhan beela tahay usul lagu daro beela like share si adribta lagu yeelo qaladkeedu waa si badanaa hadhow xaq adoo wax laga qaban karina tagay meesha waa loo dhamaana adduunkan iftiinkan in yara la jooga waa laga wada tagaa saas way marka ilaahay waxaan ka baryaynaa shaqada wadid mid adduuni aakhir ku anfacay inuu ilaahay kaaga dhigo aamin dadkana waxaan u sheegahay afgooye maanta adiga waxaad taagan tahay heerkii lagu garab qaban lahaa sax ma taagneed heerkii lagu fadhiisin lahaa sax shaqada haysidna bulshadana u haysaa sax maanta gurigaaga shaqadan adoo haynina gurigaaga biilanaysa reerkaaga dhaqanaysay wax walba sameeyay doondoonis la waxba ka ma haleysneen sida maanta tahay waa ahayd le laakiin marka hooshan soo gashay danta ugu weyn oo leedahay waxa waa inaad bulshada wax tartid adna wax isku tartid magacaan kor u qaadid marka taas heer afgooy waxaan ku codsanaa aan ugu horeeyo in garab lagu siiyo in lagu niyad jibinin in shaqooyinka qaar lagu la qabto baahidaada qaar lagu la daboolo ninka intaas awoodin inuu ku soo duceeyo walaalkeen shaqada uu haay ilaaha fududeey inuu soo dhaho oo mucaaradkii la qaboojiyo mid wax lagu saxay inuu noqdo taas heer afgooy u sheegi lahaa warkan waa dheereeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaa horta maanta anaga farxad weyn oo ah waxaana la joogo walaalkeena qaaliga ah maxamed cali sheekh oo aad taqaanaan faamos ah social ah nin isboorti nin deegaanka si fiican loogu kaso nin oo macnaa si fiican u taqaanaan mid kale saaxiibkayga Ibrahim iyo Maxamed Cali Sheekh waxay ka dhawaajiyeen dhaliisha oo soo noqotay soo laabata anaga waxaan u shaqeynaa afgooy media show ahaan anaga bulshada ka imaanay bulshada u imaanay qofka wax mucaaradaay maxaa mucaarad dhaliil waa jirtaa وانا سو جيدي كرتين دليش waxayna qanay marka waxaan baa idinka khaldan dhinacaana idinka khaldan saan wax u sax iyo saan wax u sax anaga ma nagu imaan karta waxa la dhahay mucaarad maxaa anaga mubaahan ku shaqeynaa waxaan ku shaqeynaa dadkan ku shaqeynaa Ibrahim nin cameraman waaye nin oo macnaa oo si goon u shaqeysto aha wuxuu dantiisii u baabi'iyay danta walaalihiis dhibaataysan ka dhiidhiyay anaga guntiga dhiishay isaga xirnay sida aan dadka aan maanta caalamka 2020 yaa la taagan yahay 2020 waxa la isticmaalo waa teknolojiya casri ah social media wax walba oo aad soo dhiibatiin ayadoo cad qofka lagu wareejinaa ninka anagna mucaaradayo muxuu nagu mucaarada dhaliil way jirtaa
waana la dhaliili karaa shaqadani way xumaa kartaa dhan farsamo way imaan kartaa waana saxa kartiin bis ibraahim wuxuu u taagan yahay agaasimaha maamulaha Afgoy Media Show baahida dadka Afgoy Media Show ma sana jirsanin marka anaga reality-da ama alla ka cabsiga ah u hadalno wuxuuna u shaqeynayaa YouTube ama channel 10 sano ka hor shaqeynay waa dareemi kartiin dadaalka lagu bixiyay iyo juhdiga lagu bixiyay 10 bilood taqriiban waxay tahay male laakiin sida uu channelka u shaqeeyay idinka ka marxaati marxaati ma doonto waaye idinka ka marxaati anaga walaalaheena tiin waan dhaliil kartiin dhaliishiina waxa ku ekaato saan wax u qabta wax nagu zaaidiye fakar nagu zaaidiye fikirka waa loo baahan yahay fakarka muhiim waa anaga laftirkeen xog baa aruurinaa fakar aruurinaa fakarka walaalaha ma anaga waa idin baahanay fakarkiina u baahanay talidiina u baahanay dhan kasta idin micnaa idin u baahanay laakiin anaga waxaan u shaqeynaa dadkaas dan yarto masaakiinta ah 20 sano ka hor ma isticmaali jirin social media anaga telefoon ma isticmaali jirin xitaa leelay ma isticmaali jirin taara lagu shaqeyn jiray halo lagu shaqeyn jiray haddana caalamka waxa way mubaashara waa ninka Mareykanka jooga iyo ninka Afgoy jooga si uu dhaqmoya maantana waxa micnaa shaashada la iska daawanooya nin Australia joogo nin Melbourne joogo nin Ohio joogo nin Canada joogo mashriq iyo maghrib waa labada cirif oo adduunka Honduras iyo El Salvador nin jooga maanta horta imaanay waa caatowdi waa cayishi nin waa qurux badnaatay maanta waa dareemi kartiin tatawuraadka caalamka oo gaari marka anaga baahida dadkaas tabaalaysan anagu u taaganahay waxaan ugu taaganahay ma aha nolol adduunyo waxaan anaga aan rabnaa waxay tahay aakhirada inay wax noo galaan saas waay adduun wuxuu yahay mala waa dhalanteed anaga waxaan ordayno waxa waaye aakhira inaan ajir ka helno oo markaas ilaahay macnaha oo noogu dambi dhaafo waxyaabahan iyo juhdiga aan galayno dadweynaha channelka ku xiranna waxaan leenahay barnaamijkan ka faa'iideysta mar walba anaga waxaan u taaganahay inaan qancino adiga i daawanayo dhamaantiin dadka i daawanayo dadka Afgoy Media Show ku xiran dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waxaan idin leenahay meel walba waxa waaye YouTube channel waa leeyahay laakiin YouTube channelada way kala duwan yihiin mid waa shakhsi midna waa magac dhan oo ximbaarsan yahay kan shakhsi ma aha degmada Afgoy oo dhan wada leh reer Afgoy oo dhan wada leh aniga waxaan ka ahay oo kaliya ilaalo oo ah agaasimihii oo waxaan ahay YouTube channelkaas magaca u sameeyay aadan ugu mahadsantiin haddii dhaliishan ay markaa nigu noqoto mid markaas adinka aad jawaab ka bixinaysiin commentiga noogu soo qori kartiin wixii dhaliil ee markaas hadaan qaldan iyo haddii aan saxnay haddii videoha aad ka heshid fadlan mar walba like-ta noogu dadaala videoheena annaga like la-aan hayso like saara siina share gareeya asxaabta kale si ay u sii helaan annagana markaas friends badan aan u sii helno aada ugu mahadsantiin barnaamijkeena maanta intaan kusoo xiraynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh sanid waqtiga aadna siisay channelka Afgoy Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay